إلهي درادي وقتها إلهي بدل خير قبسية. قصة كلاين حس لها وحوية قصة صاحب الأصبع من كفرتي سجوبي يدوي دويت بقى سعودي من راسي كذا عضي من كاسي نوحي هي هبلت الحيس تجدها الحيس وتم بصص عروت اللي قاعده الحيس قاعد تجاه مركا هبله markii ay kala tagtageen intoodii badnayd way iska sheekaysanayeen inanba iyadu bugaagteedii iyo notiskii iyo wixii bay raajicinayso meel gaar ay fadhiisatay cilmiga aad u jeclayd way ka yara durugtay dadkan buuqoodo geed shishay fadhiisatay si degdeg unba baskii u tagay hablihii wixiiba dabcan dad miyiga xiiseynayaan aad bay u fogaadeen meel fog bay tageen waxay aragtay way ka daba carabtay waari jooga ciidiba maqli weyn khalaas birbiraha shigtana way dhaqaajiyeen goor gabalku gaaban yahay way soo carabto jidkii iyadoo ordaysa ayaa waxay aragtay dargad yar oo kharaaba waxay istii halkan un baa kuugu dhow meel aad caawa ku sii baarkin garayso bahalku si aanu ku cunin ilaa 50 kilomitir 60 kilomitir bay socdeen meeshii ay islahayd waa kharaabad oo aad iska yara weheshatid wuxuuna kaga soo baxay nin muruqyo kuusano hurda baaba albaabkii ka furayba dan alla dhan ay u dhaqaaqdaa ma jiro uu waraystay way u warantay wuxuu hadda meesha deeba halaa ka jiray bahalku ku cunine halka iska jiifso kolla isagiiba eegtaa kolla waxay eegtaa ninkii kolla waxay eegtaa ninkii kolla dabadda eegtaa markay aragtay dabaddu inay khatar badan tahay waxay tidhi malaa kan u baa bani aadameh dee agtiisa iska seexo waa seexday ma iyadii baa seexad sariirteedii buu baneeyey sariirtiisii buu baneeyey wuxuu sariirtaa seexo isaguna halkaa albaabku yara jiifsaday xoogaa kolkuu yara joogaba kitaab buu qaataa ee uu yara akhriyaa kolkuu kitaabkaa xooga akhriyo ayuu haddana shamaca shidaayo fartiisaasuu yara gubaa kolkaasuu haddana salaad tukadaa haddana fartiisa kaluu gubaa 10kii farood ayuu mid walba dabkii ku gubay sidii baa waagii ugu bariyo inantii uu kaxeeyo reerkoodii buu geeyey ma garanaysaa meeshii haa khalaas uu iskaga soo noqday inantii haddii la warwaraystay qisadii bay ka warrantay ninkii odayga ahaa ee meesha ku aragtay xoogga weynaa iyo wuxuu xalayta samaynayay iyadina way naxsantay intaa hoosta ka eegaysa hurdaba may seexanba waxay isleed goor mustalo soo ruqansan doonaa aabaheed baa markaa wuxuu u qaatay inuu jin ahaa dabeedna wuxuu ihi bal meeshii itusi way u tilmaantii buu ku yimi ninkii buu la kulmay qisadii buu ka waraystay wuu soo kaxeeyey inantii buu u keenay markaa wuxuu ihi ninkii kan ma ahaa haabay tiri waa isagii wuxuu niyo maxaa kugu kalifayay marka hore uu soo weydiiyey markuu halkii ugu tagay buu soo weydiiyey wuxuu ihi maxaa kugu kalifayay farahaaga inaad kolba mid gubto waxa igu kalifayay buu kolba shaydaanku dhagtu waxii saaraa wuxuu idhaa buu tan caawa cidiba kaaga ma dhowaa haddaan mid uun ku hinjin lahayd caawa tanaa kugu dhow cidlaad ka heshay khalaas sina ku samee dabeetana waxaan akhriyaa buuhi kitaabka wuu soo jiidhaa buuhi kitaabkiina markaasaan kolba far gubaa buuhi marka fartaasi waxay ka turjumaysaa naarta ilaahay jawaabtu haddaad sinadaa samayso sawta naarta ilaahay dabkaa way ka sii kulushay marka naartaan ku xusuusanayay buuhi dabeetana tii kolba hamadda iga tagsiisaa buuhi ta kalena hamadda iga tagsiisa saasaan kaga joogay buuhi mar haddaad sidaa inantaydii u nabadgelisay nin daacadana sidaa u ahayd inantii imminkaan kuu guuriyey buuhi sidiibuu guur xalaala ugu guuriyey xoolana ku sahayey waa qiso sheegaysa